qodobkan ama ceeshada sida xildhibaanadii ay sheegeen dalku maanta meel halisa ayuu sii socdaa xagga maciishada waayo noloshii baba cidhiidhi gashay shidaalka waa qaali luqmadii la cunayay iyadii baba la isugu soo dhigtay kibistii baa la isugu soo dhigtay kibistiina waa qaali waxa weeye xabadii roodhida ahayd baa qiimihii ku siyaaday dadka le dawladdu waxyaabo badan bay ku samaysaa kolka waxaas oo kale ay dhacaan dawladdu markay dhaqaale leedahay iyadaa raashin keenta iyadaas shidaal keenta maanta waynu ognahay dawladda jeebkeeda waa la ogyahay cashuurta yare ay qaado mooyaane dhaqaale kale oo ay heshaa ma jiro waa cashuurta leeyahay hala joojiyo waxaan leeyahay dhibaatooyinkanu beri hore waa dhaceen waxaan xusuustaa malaa dadkii waaweynaa waa ogyihiine guddoomiyuuna ka mid yahay 82 ayaa waxa dhacday abaarana waa dhaceen maciishaduna kor bay u kacday seylacna waa la xidhay berbirana waa la xidhay Etoobiyana markaa waxba kama iibin jiray qaadkuna mamnuuc buu ahaa oo ma soo geli jiray ganacsatadii dadkii ganacsatada ahaa dad waqtiga dalka iyo dadkaba u turaya ayay ahaayeen waxay sameeyeen maciishadu iyadoo caalamka kor uga kacday oo dagaalkii gacanka uu socdo oo la miineeyay badii oo dhan eeraan ay miinaysay oo maraakiibtii baqday oo saliidii cirka isku oo Foglandkii xagga Atlanticna ka socdo ayaa wax dhacday maciishadii cirka qabatay caalamka oo dhan dadkii ganacsatada ahaa ee Somaliland way shireen waxay goosteen maakhirkoos inay ka soo rogaan xoolaha waanu dadku maaluulin maanta waxa weeye dawladda itaalkeedii haddii la ogyahay in dadka ganacsatadii ay dadka u turaan oo hadday faa'iido badan saari jiray ay faa'iidaya sunuud hadday ka helaan intaas ay Ilaahay u barakeynaya berigii hore ninka gaari baastaa keena ilaa 10 qof baa ka daba faa'iidi jiray maanta ninkii markabka keenayay wuxuu soconayaa ilaa sandaqadii ayuu soconayaa baayac mushtarigii xad ma laha kala xadayn ma laha waxa weeye nin walba wuxuu doonuu ku iibinaya kantaroolkii xadidi lahaa ee waxaan kala habayn lahaa dawladda oo wasaaradda waliba faraheediiba uu ka baxsan yahay maanta dhaqaalihii gacanta wuxuu ugu jiraa private sector-iska waa ogtiinoo waa taasoo baanankii ganacsiga Somaliland meel kastoo ay gobolada ka jiraan cidiba lacag dhigan mayso waxa weeye taas waxay ku tusaaleynaysaa in ganacsigii private sectors uu gacanta ugu jiro waxaan leeyahay dadka ganacsatada ah ee wax keena waa bireegiyaasha waa inay bireegiyaasha kii containerka keenayay baa ilaa sadaqada soconaya waxaan leeyahay xaaladdu markay sidan tahay ee abaara jiraan ee dadkii beerka dhulka ku hayo kiradii baa qaali ah leedkii baa qaali ah shidaalkii baa qaali ah noolkii baa qaali ah miyigii baa xoolay aan la iibsanayn waxa weeye meel faya qabtaa maanta aniga ima muuqato kolka waxaan leeyahay bal ganacsatada iyo dawladdu haysu yimaadeen waxaan hal falaqayo bal sida laga gudbi karayo
labadaa qolo ayay u taallaa